waxa wax laga xumaada ah oo ayaan darro lagu tilmaami karaa in 2018 ummad Soomaaliyeed dib isu leynayso in 2018 lagu talagalo maalin kasta oo soo marta inay dhimato 100 qof iyo 200 oo qof oo waxa ay ku dhimanayaan iyo waxa ay ka dhimanayaan midna aan looqon waxaan ku baaqayaa madaxda labada maamul Hargeysa iyo Garowe Puntland iyo Somaliland in ay si xilkasnimo leh arrinta tukarraq iyo gobolka Sool uga fariistaan ma jiro xad gaalo cid u qoqobi karto iyo xad si kale loo kala yeelan karo toonna ummadda Soomaaliyeed waxay ku wada degan tahay helnimo walaalnimo isqadarin xurmo caruur baa dhamaanaysa haween baa dhamaanaya deegaan baa dhamaanaya odayaal baa dhamaanaya dadka caqliga lahaa baa wax ku noqonaya waxaan xusayaa oo ku celcelinayaa maanta waxa loo baahan yahay xilkasnimo waxa loo baahan yahay maskax shiil waxa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim أنا حلبان شرماركة جراسلمان برالة عبدورا قلا شعبك وحن هلكن باق نبضات وقدر إياه تقال كتكرق كالسعودة رنتي يضع بالرمضان وعباده إنديك إسلام وإلهي حرمي إني داتان رنتي آد بانوغم رغونينا ما أنت وحن وقحوما هاي إلا بدي قبل أما لبدي معمول يقولنا بتقلية فينا runtii horumarku ka socday meel fog hiigsanay inay maanta burbur ay runtii ka taliyaan runtii aad iyo aad baan uga naxayaa waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo wax karadka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan ku baaqayaa inay nabadgelyada iyaguna qaybtooda ka qaataan bismillaahir rahmaanir rahiim ana ku hadlay magaca guddiga difaaca baarlamaanka golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya runtii waxaan halkan u dirayaa baaq labada madaxweyne gaas iyo biixiba oo leeyahay waxaan jecelnahay in nabadda la qaato tukarraq dagaalka ka socda waxay u baahan tahay xal siyaasadeed xal dagaal uma baahna waxaanu leenahay rabadanna waa lagu jiraa dadka ha loo tudho wax faa'iido oo dagaal laga helayaana ma jirto marka waxaan leenahay dhibaato mustaqbalka ah yaan la abuurin maanta fursad baa jirta in xal siyaasadeed la gaaro laakiin waxaanu leenahay dagaalka meesha ka socda dadka deegaanka ayaa ku baaba'aya xalna uma aha weligeedna xal dagaal kuma yimaado marka waxaanu u diraynaa runtii una sheegaynaa si adagna ugu sheegaynaa labadooduba runtii inay raadiyaan xal siyaasadeed bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo labada maamul Puntland iyo Somaliland dagaalka soo noqnoqday dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ku naf waayeen waliba ayadoo lagu jiro bil Ramadaan ah oo de markasta dhiig in la daadiyo xaq ma aha laakiin marka ugu daran bil cibaado Ilaahay dadka muslimiinta oo ku waajib yeelay inay cibaadaystaan inay dad Soomaaliyeed dad maata ah ciidamada labada dhinac inay naga dhintaan waqtiga hadda la jooga marnaba arrin laga murgoodo waaye waxaan aad uga xumahay intii naga dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawaca Rabbi caafimaad degdeg ha siiyo inta dhibaatada ku dhacday ee meesha degneed ka qaxday amaba dagaalkaas dadtiisa ugu qaxdayna waxa Ilaahay ugu mataqaan ugu baryaa inuu Ilaahay u fududeeyo amuuraha iyo rafaadka ay ku jiraan ilmo yar baa dhibaato ka soo gaaraysa hooyooyin iyo familiye iyo mataqaan dad odayaal oo da'al ah bay dhib ka soo gaarayaan aad iyo aadan ugu xumahay waxaan u soo jeedinaa madaxweynayaasha labada maamul shacabka wax garadka inay arrintan u istaagaan dagaalkan mar daba inuusan dhicin inuusan wada hadal iyo in la isla wada hadlo in lagu xaliyo mushkilada